السلام عليكم. هديو إيمان تجرو قفك بنعب سيداتهاي هإلوبن إنو جرو قفك بجعل سيداتهاي وايو هدون كان عياب سيدان اسكاها لعقتو فرحتكم ما يبسن كرتيد وحاجري لمن إنو درس oo la kala oran jiray guuleed iyo faarax waxa uu ahaa nin beeraley oo faqiir ah halka guuleed uu ahaa nin hantiila ah faarax wuxuu ahaa nin xoolihiisa ku raaxaysta oo farxad iyo jacayl ku nool xilliga habeenkii markuu seexanayo albaabada iyo daaqadaha qolkiisa ma xiri jirin guuleed wuxuu la yaabanaa ninkan dariskiisa ah oo iska seexanaya iyadoo daaqadaha iyo albaabada ay ka furan yihiin xilliga habeenka aad ayuuna ugu soo horjeeday farxaddu uu ninkan haysto maalin maalmaha ka mid ah guuleed waxa uu u yeeray faarax wuxuuna siiyey qasnad ay lacag ka buuxdo wuxuuna ku yidhi saaxiib how lacagtan waxaan arkaa inaad nolol faqiirnimaha ku nooshahay waxaan rajaynayaa inay lacagtan ay meel kaaga soo bixi doonto isla markiiba aad ayuu u farxay sidii maalintii oo dhan uu lacagta u koolkoolinayba waxaa la gaaray habeenkii waxa uu aaday sariirta si uu u seexdo laakiin caawa ma seexan karo xitaa daaqadaha iyo albaabada ayuu xiray si uu lacagta uga taxadaro laakiin weli ma seexan karo waxa uu kolba lacagta eegaba waagii ayaa ku caddaaday isagoo aan seexan markii waagigu caddaaday ayuu lacagtii isagoo wada waxa uu u geeyey guuleed saaxiibkiisa wuxuuna ku yidhi saaxiibkaygiyow how lacagtan waxaan ahay nin faqiir ah waxay ii diiday lacagtaada farxaddii aan haysan jiray fadlan how lacagtaada dibna u qaado saaxiibkiisu wuu la yaabay wuxuu isdhahay nin faqiir ah oo haddana lacag diidayo macquul maahan waayo ninkan faqiirka ah wuxuu yidhi lacagtu farxad kuma iibsan karto waayo lacagtu farxad kuma iibsan kartid ku qanac waxaad haysato saaxiibkaygiyow waxaad noqonaysaa qof faraxsan wasalaamu calaykum